waxaa dhacday inay qabteen wax la yiraahdo tournament aad u qurux badan oo dalka Soomaaliya aan weliga ka dhicin ee home away in naadiga maanta uu ka soo ciyaaro gaalkacay berita jimcaha dambe uu ka ciyaari doono meesha la yiraahdo Boosaas oo kaleeto ama tan Boosaas ku ciyaartay in garow ka ciyaaraan ama kan garow ee qaran marka isdhaaf saas oo kale loo sameeyo marka waxaa dareemi kartaa marka koostay gali kara iyo dadaalka badan oo lagu sameeyay taa marka waxay suurto gelisay in baahidii iyo waxqabadkii ama horumarkii ama bilicdii isboortiga ama footballka uu dib u soo noqdo marka waxay qabteen shaqo aad iyo aad u qurux badan xilliga asaga aha waxaana ka muuqanaysa xitaa dhalinyarada markaas la soo xulay ilaa wax markay tournament uu socdo waxay imaan kartaa in uu muuqan karo shakhsi kasto ku habboon footballka inuu madal teamkii marka state-kaas u ciyaar lahaa team marka waxay suurto gelisay iyadoo aan xitaa ma aragtay aan raadin badan la gelin ayaa qof kasta waxa u muuqanaysa qofka shaqadaasi ku habboon xulashadii ay soo sameeyeen waa tii ay ku gaareen guushii ugu quruxda badneed ee state-ka u horeeyay markii lagu qabtay shaqooyinka qabtay kaas ayaa kamid ah nin waliba hadda fakarka iyo aqliga iyo horumarka dadaalka u wada hadii ay isugu geeyaan ummadda meel sax ah iyo wada sax ah waxaa dhici karta insha Allah in hore loo socon doono hadii alla qadaro waxyaabaha yaroo jira insha Allah wada hadal badan kadib waxbaa la saxay wixii dhiman insha Allah waxaan jecelnahay in dhamaystirkiisa aan mar dhow soo gabagabeyn doono hadii alla qadaro